السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي الصدى وهذا ملكستو الجوكتين وصاحبكين عبد الرشيد قنعية. ما أنتو حنجعلنا إن كهذا غضب مالمهن براه بالشدة قبصدية ما فيسبوك سوين وهذا الحي وكو أدن سامينتا ينولوشا ودنك جرمالكا يسو مالذو كودقن iyo sidoo kale Soomaalida degan wadamada Scandinavian-ka sida Denmark, Sweden, Finland iyo sidoo kale Norway oo lagu daray wadanka Ingiriiska. Isla bardhig ayaa socdo maalmahan la sameeynayo. Dadka qaar waxay leeyihiin Jarmalku dad buu u yahay qurbo. Jarmalka ma gaaro wadamadaasi iyo sidaas. Laakiin tan koowaad horta isla bardhig marka loo sameeyo Jarmalka iyo Scandinavian-ka oo lagu daray Ingiriiska. Jarmalku waa wadanka ugu dhaqaalaha badan qaaradan Yurub oo Ingiriisku hadda ay ka go'een qayb ay ka yihiin. Sidoo kale Jarmalka waa wadanka saddexaad ee dunida ugu dakhliga badan dhaqaalahaan marka la yiraahdo. Jarmalku waa wadanka isku haya ururka midowga Yurub. dabcan marka lagu leeyahay midowga Yurub haddii Jarmalka aysan qayb ka ahayn midowga Yurub wax la yiraahdo ma jiri lahayn oo qof walba waxa uu noqon lahaa wadan yani ururkaasi wax la mid ah aan isugu imaan. Salamada Jarmalka waxay xuduud la leeyihiin ku dhawaad 9 wadan. 9kaas wadanna waxa kamid ah Talyaaniga iyo Faransiiska oo ay daris yihiin. marka Ingiriiska oo kale Jarmalka ganacsiyo waxyaabo badan way ka dhaxeeyaan laakiin xuduud ma leh oo daris ma aha. dalalka Scandinavian-kana Denmark ayaa ugu soo dhow magaalada aan joogo Hamburg. dabcan waxay u jirtaa wax yar. anuuni maana marka Soomaalida wadamadaas degan iyo wadankan Jarmalka aan ku hormarno wadamada Scandinavian-ka iyo Ingiriiska. dabcan waxa degan Soomaali aad iyo aad u fara badan. haddagnaada ma xumee waxay wadankaasi yimaadeen qaarkood waa dadkii hore in ka badan 30 sano ama 40 sano ka hor. laakiin Jarmalka marka timaado waxaad arkaysaa dhalinyaro cusub oo wadankan yimid 2010kii wixii inta ka qaarkood waxa jira dhalinyaro laga soo qaatay wadanka Malta iyo wadamo kale oo Jarmalku ay soo qaateen 2011 2012 ilaa 2010kii. iyo dhalinyaro qaab tahriiba ku yimid wadankan xoogooduna ay soo galeen sanadkii 2015 markii Jarmalku ay qaadanayeen qaxooti aad u fara badan. marka qodobka ayaan dul istaagayaa nolosha Soomaalida Jarmalka waxa laga yaabaa qofka jooga Scandinavian-ka iyo Ingiriiska inuu u arko nolol cariiri ah oo qofku uusan waxba ku sameyn karin laakiin taas ma aha. nolosha sideedaba qofka isaga ayaa ka dhigan kara cariiri ama culays ama in qofkaasi ay dhibaato la kulanto. hase ahaatee waxaa jira waxyaabo badan oo Jarmalku uu kaga wanaagsan yahay qaabka dhalinyarada ay u nool yihiin Scandinavian-ka plus Ingiriiska marka lagu daro. Faransiiska iyagu warkooda iska daaba oo Soomaalidu inta badan kuma badna halka iyadoo hadda wadamada Yurub dadka ay diidaan intooda badan Faransiiska ay tagaan. qodobkaas maalin kale ayaan ka hadli doonaa. laakiin dhalinyarada imaaday 2015ka Jarmalka waxa laga yaabaa inay yihiin sharciyadii ugu horeysay inay qaateen inkastoo ay kala wanaagsan yihiin sharciga weyn ee citizenka oo 8 sano iyo shuruudo lagu qaato wadanka Jarmalka. haddana Soomaalidu waxay yihiin xoogoodu kuwa shaqaysta. Soomaalidu waxay tiraahdaa ninkii shaqaysta ayaa sharaf leh. waa run nolosha Jarmalka waa cariiri canshuur fadal badan ayaa qofka laga jaraa marka uu ku nool yahay gudaha wadanka Jarmalka. hase ahaatee 2015kii ayaa wadankan soo gashay. sanadkii ugu horeeyay waxa laga yaabaa ama 2 sano dadka qaarkood daayar ay isku dhiibeen in yani waxbarasho iskool laga daba ordaay. laakiin ninkii maanta shaqo fuulay 2000 iyo maxaa la yiraahdaa 17kii ilaa 16kii ilaa maanta altuaan shaqeynaya dabcan uma baahna Scandinavian uma baahna Ingiriiska inuu aado. waxaan Yurub u imaanay qaaradda Yurub u imaanay Jarmalka u imaanay ayaa ah in qofka bini aadamka laba mid uu noqdaa. waa markoo qofkii inuu wax bartaa oo waxbarashadiisu la heer uu ka gaaraa waa la waay waa inaad xoogaa u cuni kartaa oo aad shaqaysan kartaa. Soomaalida Jarmalka marka waxyaabaha ay kaga fiican yihiin Scandinavian-ka Ingiriiska
طبعا لما شقست ما dhaxay laakiin boqolkiiba boqol jarmalka ayaa kaga fiican hadda jarmalka kale Soomaalida xoogooda waxay u shaqeeyaan shirkad la yiraahdo Amazon saacadii qofku wuxuu ku shaqeeyaa 14 euro ilaa 58 city lacag gaaraysa marka hadii bishii ay ku soo dhacayso 2000 guriga ayaa kireysatay 500 600 macalin kaasiyoonkii waxyaabihii markaa ku bixiso 1500 ay ku soo haraan dabcan biilkaagi reerkaagi inta u direyso nin wax safe gareeyaa noqonaysa inay jarmalka Soomaaliya joogto la qabsataan waxa ku ogaanaysa dabcan hadda waxay bilaabayaan inay guursadaan hadda waxay bilaabayaan wadankii inay aadaan oo waxyaabo badan ay soo kordhiyaan marka nolosha wadanka jarmalka Yurub waa isku Yurub dalaan dalkaaga hayn waa dareen ku joog boqolkiiba boqol Soomaalida maanta Yurub joogto jarmalka joogto waa kuwa shaqaysta waa kuwa ismaamuli kara waa kuwa maxaa la yiraahdaa wax kasta yani qabsan kara ninka ragana inuu shaqaysta oo horumar gaara dabcan waa waxyaabaha aan u soo tahriibnay oo Yurub loo yimid laakiin marka tagto Scandinavian-ku aad turub dheesho dhaadhu dheesho dabcan wax ay ku soo kordhinayso ma leh si kastaba haatee isbarbardhig marka la yiraahdana anigu jarmalka markaan imaanay dabcan qorsheyga ma ahayn inaan ku noolaado oo Scandinavian-kaasi ayaan doonayay inaan tago laakiin calafkii ayaa ama briiskii halkan ka qornaa laakiin maanta hadii jarmal ba aan ka tagaayo xamar caday meel ahaan ima celiso Scandinavian ima celi karaan Ingiriiskan celi karin jarmal haduu celi waayo wadankii oo kaliya ay celin karo dalaan dalkaaga ahaan waa dareen ku joog ka shaqayso wax ka baro caafimaadkaada ka fikir jarmalka waxyaabo ku wanaagsan yahay waxa kamid ah caafimaadka hooyooyin aabbo Soomaaliyeed oo degan Ingiriiska iyo Scandinavian-ka ba halkan u yimaada caafimaad maanta caafimaadkeena anaga iska bixina anaga shaqaysana tirkow dhawaan dawladda jarmalka ay soo saartana boqolkiiba 37 oo kaliya ayaana shaqaysan waan hooyooyin caruur iyo dhalinyaro qaar oo sharciyada iyo waxaas ama faral leh lagu adkeeyay laakiin inta kaleeto boqolkiiba 63 Soomaaliya wadankan joogto xoogooda ayay cunaan iyaga ayaa shaqaysta iyaga ayaa horumar gaara hadii wadanka aad joogto oo ku fikirayso in baraha bulshada lagu xumeeyo jarmalka hadii aad doonayso inaad tahay shaqaysta wax barta caafimaad u baahan waxaan kugu talin lahaa inaad imaado wadanka jarmalka saaxiibayaal soo dhawaada warbixino iyo wareysiyo badan jarmal ku saabsan waan bilaabi doonaa barnaamijyadana waxay yihiin kuwa toos ah waa saaxiibkeen Cabdirashiid Qanciyo oo idin leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته